بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل معنا ونحسن ذلك قيمها بدل الدافع الدنيا يدل كريس نقل صدا كسر هذا برامج كي قبنا برامجات شو قبناها يعني من تبدأ كوريسين جرني ذلك صاحب العقل جاه يدل كودو يكسر لابتين مصطفى وجينا عندكم مقعدر أيام كلنا سكدي سمجال ده هرجيسة قارهانا هوديل كعيال شيخ كويا لا حافظ بيدعي مصطفى كسر دور باهي الدولة ده بالكورة درين خاجة ودنكي هو إلهي ونبت كاني أرمو سيف عم بيوصعدان ودنكو وحول بواب تديد وفي أيهاي لكن واحد ترى وحقاير سحر برا كان إلهي بأنك قام دونا وحول بوه هجاجيا لكن واحد مضح ودنكو واحد كله تلنا لها فرمسية ده يدوين كإننا كان الدوين تيلا الدوين كواليتي له فرمسية بدنا واحد كانوا دوين عن تيلا هين مركز دوين تيلا لكانوا كواح كاستول سود تشيني ودنك لكانوا وين كواليتي كنترول وين يشان marka laga hadlayo horumarka wadanka siyaasadda wadanka wada la socota maxaa kaaga bidaamay si wax u socdaan wadanka madaxda qaranka si fiican bay wax u wadaan madaxweynaha qaranka magaciisa jiro si fiican buu wax u wadaa wax walba up to date weeyaan wax walba wanaagsan dad fara badan baa kala daawanaya daafiid adduunyada iyo wadankii Norway ka timid iyaga maxaad ugu baaqaysaa waxaan leeyahay waddankiina hooyo ku soo noqda oo mustaqbal iyo wax ka sameeysta hadii insha Allah marka laga hadlayo caafimaadka oo kale waxa aad ka dhawaajin dawooyinku aanay tayo lahayn dawladda maxaad ugu baaqaysaa dawladda waxaan ugu baaqi lahaa dawooyin quality leh oo tayadoodu fiican tahay dadka loo keeno farmasiga badana dawooyinkan markaad eegto waxa weeyaan Pakistan iyo waxba ku qoran iyo India iyo waxba ku qoran quality markaad medinkooda eegto marka qaar quality leh oo dadka wax u taraya hadii la heli karo waxa jira dhalinyaro fara badan oo qurbaha u hanqal taagaya xilligan munaasib ma tahay in dalkooda uu ka baxaan may qof walba waxa uu wanaagsan wadankiisa hooyo meel u dhaanta ma jirto insha Allah shaqooyinkuna way furmi doonaan wadankeenu daaman buu noqon doonaa insha Allah marka qof walba waxa fiican wadankiisa aamina fiican geedi socodka siyaasadda Soomaaliland maadaama madaxweynahan hadda talada hay'adda maran gaar u sheekaysan ka dhawaashay inaad la soo shaqaysay oo raggii dib u ololiyay tahay sidaad aragtaa ururadan cusub iyo diiwaangelinta 8 bisha inoo bilaabi doonto diiwaangelinta ururada saddexda xisbiyo imika in badan bay raageen marka waxaan hadii xisbiyo kale la furayo oo ay dad badan ka qayb galayaan waa okay alright way fiicanta adoo aqoontaada ka faa'iideynay dhinaca maalgashiga ka war wadanka maxaa chance jira والله maalgashiga aniga aad iskuma fiicnin laakiin de qolooyinka bacbishiriga ay ku fiicantay war ma aniga wax soo saarka beero kala ka dhawaajisay qaadko kala tacab badan waxaan ku boorin lahaa hadii imika anagu bariga hore beerta door xagga ku lahayn Salamaana min agtiisa lacag adag ba maalin walba Itoobiya inaga baxda miisaaniyada dawladda lacag fara badan baa inaga baxda marka waxaan ku boorin lahaa in dadkeenu jaadka beertaan la soo baxaan si lacagta Itoobiya nooga baxaysa aanu wadankeena ay dib ugu soo noqoto lacag adag ba maalin walba inaga baxda beerday lacag badan baa inaga baxaysa Soomaaliland waxay ka cabanayaan shacabkii dhakhtar xumo maxaa talaad ka jeedinaysaa waan dhakhtarada way joogan dhakhtarro fiican waa laga yaabaa inay joogan laakiin dawooyinkii baan tayo lahayn Soomaaliland dawooyin tayo ma joogan dhakhtar Ismaaciil Babari la dhigay farba iga jabtay lay kabay waxaan ku ri anti kiniinadii xanuunka joojinay oo dhan quality ma laha saddex goor baa markii dambe ay ugu mudaynantii meesha ka shaqeynaysa irbad waxay tiri waa xanuunka ka joojinaysa way caawin weyday marka anti pain bay tiri laakiin 3 times markii dambe waxay tiri overdose baa qaadan kartaa kuma fiicna laakiin daweydii wax quality ah ay leedahay sidii la doonay ma noqoto Dr. Ismaaciil ma wallahi ma sidii ma saad baa la qalabay ugu dhahdeen saadii deetana wali ma si aad u fiican ma noqon insha Allah gabagabadii fariintaad u diraysa shacabka reer Soomaaliya waxaan leeyahay dadkaygii hooyo waxaan leeyahay la isku tiirsanaado dawladda la shaqeeyo wax walba inoo hagaagayaan xisbiga ucud wadani kulmiye wax oo dhan waa wada dadkeeni no problem marka la shaqeeyo dawladda la shaqeeyo wax walba up to date
حق السوشيال ميديا ودليردي سامين بدن ku yeeshay maxaad isaga iyaga tira soo jeedinaysaa social media wanaag iyo faa'iido ما مدحدين ديان لا فلقادين مدحدين وين الاحترام رف بمدين وين الاحترام دولته وين لو shaqeeyo marka adu ma ka soo laalaabatay qurbiga waddanka soo degtay misaafir madaxiya keentay ما in mudaaban imka yar joogaya hadii la hadaa laakiin waxay qorsheysan insha Allah mustaqbalkeena soo noqdo waddankayga hooyo insha Allah madaxweynaha ku daawanaya guriisi wasiirada shacabkiiba ku daawanaya fariinta gabagabada wax tar kala diraysa maxay tahay de fariinta waa madaxda qaranka waan wada salaamayaan madaxweynaha waan salaamaya jaranka ciidamada waan salaamaya ciidamada qaranka Soomaaliland oo dhan on magacooda ku faano waan salaamaya si gooniyan u salaamaya wax walba khayr weey aad iyo aad ayaad ma santay kaasi waxa uu aqoon Mustafa oo runtii shakhsi aqli badan